الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، خطبتنا waxay ku saabsanayd Ilaahi subhanahu wa ta'ala aadanaha uu koonkan ku abuuray. qolo walba waxay leedahay ujeedo, qof walba wuxuu leeyahay hiraal iyo meel uu hiigsanayo, qof walbana qiimihiisu wuxuu la ekaanayaa waxa hiraalkiisa iyo hiigsigiisa iyo hilaadiisu ay tahay. hadduu yahay qofku qof adduunyo kaliya u jeeda oo hamigiisa asaga murgiya ama uu ka shaqeeyo ama waxa isaga muhiimka u yahay adduunyo kaliya oo aan xisaabtiisa aysan ku jirin aakhiro, maxaad barri mudan doontaa? qiimihiisu intaasay la egtahay. qofka aakhirada doonaya oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu u noqonayo og in la xisaabin doono, in la weydiin doono cumrigiisa fiima afnaa, muxuu ku dhameeyey? can shabaabihi fiima ablaah, dhallinyaranimadii muxuu ku baaliyeeyey oo uu duqnimo ku gaaray? maalkiisa xagee buu ka kasbay, xagee buu ku bixiyey? wax walba uu soo maray fi kulli shaaridatin wa waarida la weydiinayo, ku xisaabtamanaya. qofkaasuna qiimihiisu waxa hiraalkiisa iyo hiigsigiisu uu yahay ayuu la egyahay. sidaa daraaddeed adduunka dadka joogana labadaasay u qaybsan yihiin. qolo waxay rabtaa nolosha adduunyada keliya. qur'aankuna yani suu u cabiray fiiri: zuyina linnaasi حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام. زين للناس الشهوات. إلهي ما أرم، إلهي وحير زين للناس حب الشهوات. دتك وحلو قرحيي شهواتك معمعانك جعيل كور دمر كان لجعليسيي مالك النوع يدي سكل الدون، يعني محان كله مود إيا النول ayaa la jeclaysiiyay. aadanuhu wuxuu rabaa inuu ceenad ahaado oo barwaaqo ku nool yahay, wuxuu rabaa gabadha ugu quruxda badan inuu guursado, wuxuu rabaa caruurta u wanaagsan inuu dhalo, wuxuu rabaa mood iyo noolba inuu ka dharagsan yahay. waa asaga qorshihiisa. qofka aakhira doonaya laftigiisa zuyina linnaasi xubbu shahawaat waa ku jira. لكن قفكا محا قبنيا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. مركا لوانيو مركا دنبيقو كدعو إلهي وحسوسنا يا سبحانه وتعالى ونقنيا وإسعيل كان بنيا وحوج على سنة يا إنو إلهي أطوبت كيانو إنو إلهي سبحانه وتعالى أنقضه. مركا نولشاس وناقاس برواقداس أدون كتالا وحال ربا قفكا مسلم كأه marka hore aakhira iyo adduun markay isu garab yaalaan waa inuu aakhira doortaa. adduunkana maxaa weeye? waa inuu ka shaqaysaa. wabtaghi fiima aataaka allahu daara alaakhira walaa tansa nasiibaka min addunya. aakhiradaada u shaqayso, wixii ilaahay ku siiyey aakhira ku dalab, raganimada aakhira ku dalab, maalka aakhira ku dalab, aftahamada aakhira ku dalab, yacni awoodda iyo baawarka aad haysatid aakhira ku dalab. nasiibkaaga adduunyadana ha ilaawi. adduunkaaga ka shaqayso, wax xoogso, shaqayso, wax tarmi, guurso, caruurta waxbar. ilaahay kuma diidin subhanahu wa ta'ala. laakiin arinta ceebta ah waxa weeye markuu qofku noqdo calooshiis la ciyaar. maxaan cunaa, maxaan cabaa, maxaan guursadaa, caruurtayda kaliya, reerkayga kaliya, naftayda kaliya. war aawo dadkii kale, war aawo ummadii lagu xil saaray barrito ama haddaba waxaa laga yaabaa inaad ummadda meel hogaana u joogtid adigoo ummadii hogaaminaya oo wasaarad fadhiya ama hay'ad fadhiya ama agaasimo ah ama gudoomiye ah ama maamule ah. haddii noloshaada kaliya ay murugtaadu tahay, waxaad ka murugoonaysaa ay noloshaada kaliya tahay oo aadan qofna dan ka lahayn, barrita maxaa ku jawaabaysaa? marka ilaahay ku weydiiyo subxaanahu wa ta'ala war dadkan raciyada ah oo adiga lagu dhiibay oo aad hogaanka u ahayd oo aad horjoogaha u ahayd oo aad gudoomiyaha u ahayd oo aad wasiirka u ahayd
oo agaasimaha u ahayd baahidoodii maxaa ka qabatay yaadan ba wax ka qabanay ma la socotay ma ogeyd ya bari marka lagu weydiiyo maxaad ku jawaabaysaa qolada marka waxaa la rabaa inaad qof fiirsada kuwa aakhira raba iyo kuwa adduunka raba ilaahay quraanka soo uga waramay fiiri man kana yuriidu alcaajilata ajjalna lahu ma nashaa'u liman nuriid nolosha degdega oo adduunyada ah kan raba inuu durba uga dhargo wax qofkaan doono iyo intaan doono baanu siinayna qaar baa jira aan taaca lahayn oo aan ilaahay ku xirnayn oo mujrimiin ah laakiin gaajo u baqtiyay adduunku waa jecel yahay laakiin ilaahay ma siin subxaanahu wa tacaala soo ma jeed ilaahay ciduu la doono siinaya intuu ka doono siinaya maxaa yeelay jaangooyo rabbi dajiyay baa adduunka ka socota صح sida loo kala dadaal badan yahay sida loo kala aqoon badan yahay sida maaragta maxaan ku leeyahay qof walba uu adduunka u geliyo dadaal ayaa laga yaabaa inuu wax u dhaliyo laakiin haddana marna qoondada ilaahay ma dhaafi karo mujrim dirica aqoon leh dadaal badan ayaa ilaahay gaajo u dilaya mar baan waxaan arkay nin wuxuu yiri adduunkan aniga waa ka yaabay biyo maxaa dhacay baan bal hebel baa waxay istu yiri aniga waa waay wada waxaan hebel maxaa ka fiican tahay adiga maxaa halbeega ku cabirtay muxuu yahay wuxuu yiri ana aqaan waa ka aqoon badnahay waa ka diricsanahay waa ka raganimo badnahay waa ka galgal badnahay haddana maxaa isaga ka maqan jaangooyada ilaahay baa ka maqan subxaanahu wa tacaala wuxuusan qadarin meeshan waxa socda jaangooyo ilaahay dajiyay subxaanahu wa tacaala inay tahay oo aan laga gudbi karin laakiin qofka adduunyada kaliya raba muxuu helayaa adduunka wixii raba laga siinaya thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura ma'aalkiisa iyo meesha uu ku dambaynaya jahannama ay noqonaysaa asagoo caayan dulaysan sharaf daran ayaa jahannama la geynaya waman arada al-aakhirata wa sa'a laha sa'yaha qofki aakhira raba oo aakhirada u saciya aakhirada see loogu saciya waa ahlu salaat waa baari ya waa xaweeye waa ummadu kaalmeeya wuu sadaqa badan yahay waa runlow ya waxa weeye waa naxariis badan yahay soo ma jeed aakhiru raba wixii lagu gaari lahaana wuu qabanaya wa huwa mu'minu de waa mar walbana waa in iimaan la helo haddaan meesha iimaan oolin waxba ma yaalaan gaaladu sadaqada waa bixisaa hadda ka hor aan sheegay waxaa laga yaabaa maanta adduunka aan joogno gaalada iyo muslimka yaa sadaqa badan gaalada sadaqa badan milyaaraad ay bixiyaan bill gates iyo wadinka arkay yani 10 nin oo adduunka ugu donation ka badan hal nin muslimka hal nin ayaa muslimka sagaalka kale waa gaalo laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa ay bixinayaan adduunku ugu hormarinaya soo ma jeed aakhira soo maaha habaan manthura habaa waxa la yiraahdaa meesha duleesho iftiinka qorraxdu ka soo gasho waxa dhex cararaya habaa kaasa la yiraahdaa wixii waa u jeedaa ma qaban kartid hadda maanta oo dhan saa tiraahdi haddaad intaad maaragta maxaan ku leeyahay wuxuu sariid soo maray sida asaa ku tiraahdi ma arkaysid laakiin duleelkii markaa fiirsi iftiinku ka soo galayay waa arkaysaa halkaasa la marinaya sadaqadooda laakiin dadkan ilaahay subxaanahu wa tacaala fa ulaa'ika kaana sacyuhum mashkuura kuwaasaa socodkooda halgankooda hilaadooda ay tahay kuwa la mahadiyo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu guulaynayo haddana kuwa aakhirada jecel iyo kuwa adduunka jecel ilaahay qolana ma qadinayo kullan numiddu haa'ulaa'i wa haa'ulaa'i min cataa'i rabbik gaalada hadda waa naga hanti badan tahay soo ma maxay nooga hanti bateen waa dadaaleen waxbay barteen soo ma jeedin aqoon bay leeyihiin cilmi baarisay leeyihiin maamul fiican oo keena ka fiican ay leeyihiin soo ma jeedin gaalaha ahaadaan laakiin qaanuunka cid walba ka sareeya madaxweynuhu soo raba ma yeeli karo ra'iisul wasaaruhu soo raba ma yeeli karo wasiirku soo raba ma yeeli karo soo ma jeedin wax yar waa garanaysaan wasiirka caafimaadka Holland hadda coronavirus intuu jiray waxa la yiri laysma gacan qaadi karo laysma dhaxgeli karo wasiirkii oo gabar gacan qaadaya la arkay kaamirada qabatay saxaafada la soo dhigay markiiba waa iscazilay wasiiradeena diracyada ah oo meesha iskaga dhagaaya ma ah soo ma jeed ya markiiba uu iscazilay maxaa yeelay wixii qaanuunka uu sheegayo khilaaf waa naga maamul fiican yihiin waa gaalo waa naga system fiican yihiin waa naga aqoon badan yihiin waa naga cilmi baaris badan yihiin waa naga dadaal badan yihiin ilaahay marka muxuu yiri kullun numiddu haa'ulaa'i wa haa'ulaa'i min cataa'i rabbik wama kana cataa'u rabbika mahdura ilaahay deeqdiisa cid laga xarimay ma jirto lidaalika dadka muslimiinta ah haday rabaan inay hormaraan
haddaan rabno Soomaaliya inay hormarto haddaan rabno inay Puntland hormarto waxaa la rabaa inaynu ku tacabno oo juhdigeena gelino nidaam fiican inaan helno oo aan ku kala dambayno system fiican inaan helno aqoon fiican inaan helno takhasusaadka maanta la isku cabiidiyay inaan dalkeena keenno oo dhalinyaradeena barno ya BBA waa baranay shariicada waa baranay geographiga waa baranay mawjada laakiin meelaha maanta la iska sunduleynayo ya waa ina chemical engineers helnaa waa inaman physics ku takhasusay aan helnaa waa niman electrical engineering ku takhasusay oo khubaro ah helnaa electronics engineering ku takhasusay khubaro waa inaan helnaa maxaa yeelay maanta adduunka teknolojiyada la isku dilaya haddaadan technology kuwa IT-da iyo maaragta computerka iyo aqoontiisa ku takhasusay waa inaan helnaa aqoon ablaysan isu dheelitiran qorshe ku socota meel u socota hiraal leh waa inaan helnaa dhaqaalaha inta yar oo aan haysano waa inaan beeqaansanaa mushaharkaada waa inaad biilka sadaqada qaraabada waalidka dhigaal inta waa isugu jira haba yaraatay $1 meel dhig soo ma jeed qaraabada ha qadin ehelka ha qadin laakiin maxaa la diidayaa waxaa la diidayaa hadda 500 ay soo gasha 500 ba waa kharash gareeya waliba deynaan gala waa qorshe xumo khaasatan afkeen way soo amaan inaga goboladeenaan anu ma aqaa wax ziyaada ina ku ah waxaan wareystaa wiilasha baa iyo bakool ka yimaado halkan ka ganacsada waxaan adeerow see meeqa islaamooda leedahay mid wuxuu labaan leeyahay saddexan leeyahay gaargac yar oo haystaa wani Huseen nolosha u dabirtaa wuxuu ku leeyahay aniga mid bay dhabay joogtaa meel tuula ahay joogtaa beer yar ay leedahay laba socol la u jooga bakaara u xabaalan ya $60 u dira billahi alaykum ya wa reerka gobolladaan oo $60 beeran kara ma jirto ha ka yaabin ninku wuxuu qornaa $1,000 baan saxiixa bishiyo haddana qaati billahi taagna ya waa qorshe xumo waa iska kibir beena oo aan wax uu ku fadhiyo la garanay ya shaqadii iyo inaan shaqaysano dadku inay wasaaradaha dawladda ka shaqeeyaan iyo inuu askari dadka ilaaliya noqdo iyo inuu xoolo dhoofiyo iyo in bakhaar iyo shirkadu ka shaqeeyo ma ogiye shaqo kale ma qabanayo kabaliyeri ma noqonayo cuntada ma karinaayo baabuurka ma dhaqayo kabaha ma baalashayo kulli waa shaqo wadanka shaqo la'aan ka jirtaa wadanka shaqo la'aan kama jirto inaga aan shaqada rabin lidaalika waxaan u baahanaa inaan aqliyadeena bedelno maskaxdeena inaan bedelno inaan u fakarno si ummadnimo ah masjidkan dadka ii muuqda hadeer dad fara badan oo madaxda dalka fadhiya agaasimayaal fadhiya wasiirra fadhiya xildhibaanada fadhiya ayaga mas'uuliyad gaar ah saaran mas'uuliyadda gaarka waa maxay waxa la rabaa koow hantida ummadda ay u hayaan inay ilaaliyaan waxa la rabaa hantida ummadda inaan lagu takrifalin soo ma jeed fiiri qofka shariicadeenu ajaa'ib waa qofka muslimka ah haduu rubcu diinaar wax dhan ya oo private ay qof gaar ah leeyahay ama si gaar ah loo leeyahay haduu xado shariicadeenu gacantay goynaysaa marka hadii la fiiriyo shuruudo muayana markii laga waayo gacanta la goynayo laakiin maalka caamka ah gacanta lama gooyo maxay shariicadu saa u yeeshay qofkan maalka caamka asaga waxbuu ku leeyahay laakiin mushahar buu qaataa adeeg buu leeyahay intaas waa inuu soo dhaafay maalka ummadda in la ilaaliyo dadka madaxda u tihiin haamish ay idinku arki karaan oo dantooda idinku sheegan karaan inaad u samaysaan inaad dhibtooda ogaataan inaad u dubnaxdaan inaad meel fiican u kaxaysaan waxay keenaysaa in dalku fiicnaado in bulshadu fiicnaato inaynu ummad noqono inaynu ummad meel u wada jeedda noqono qof kastana saasa laga rabaa lidaalika waxaan isu dardaarmaynaa adduunkeennana aan u shaqaysano wax alla wixii adduun ah oo inagu aynu kasabnay inta alla inoo gartay oo alla inoo hibeeyay macataan kasabnay ilaahay baa inoo hibeeyay aakhira aan ku raadino adduunkeenana yeena ilaawi aan ka shaqayno inaan noqono dawlad xoog badan nidaam leh kala dambayn leh meel fiican u socota aan ka shaqayno tacliin qorshaysan oo habaysan dad barta aan ka shaqayno bulsho iskaalmaysa isu naxariisata kan gaajaysan og ya inaynu noqono kutubaha shaafiiciyada waxa ku qoran magaalo dedegayin muslimiin hadii qof muslim gaajo ugu dhinto diyadeeda ku waajibaysa yaani magaaladan aan joogno waa inaan qofna ku gaajoon hadii qorshe jirana qofna ma gaajoonayo nabigu sallallahu alayhi wasallam waxa ku soo gabagabeynaya ash'ariyiinta abu musa al-ash'ari
قبيل كيسا وحلو أورنجر أشعريين أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه صحابي قبيلة ديسا نبي وحي أشعريين تو أنا يجمدين أنا إيجان كمدا مركي لو يدي نبي صلى الله عليه وسلم حاد عي وحي يري أشعريين تو ودب يدف وذاك مركا أي سفران أما أي ميل جوجان وأباري دعده أما سفر كذلك أي سهيدة كجوده waxay yeelaan sahaydi qof walba uu tay ayaa meel lagu shubaa waxa la dhigaa darbaalo ama go'aar dhulka la dhigo yaal baa dhulka la dhigaa dabeetana waxa lagu shubaa wixii la haystay hadana si ig wala u qaybsadaan macnaheedu maxaa waay hadii guri garow ku yaala saddex kiish oo cunto ah isdhaaf la dhigo midna saddex haaf la dhigo midna saddex joodhaa la dhigo midna soo kiilaysto midna maqada ama dharag yahay ya hadii garow oo dhan guri kasta min hal kiilo oo bur ay hal kiilo bariis hal kiilo sonkor laga guro waxaan idin huwa magaaladan cid ku gaajoonaysa ma jirto shaki male laakiin maxay inoo ka baahan tahay dadaal waxay inoo ka baahan tahay dareen waxay inoo ka baahan tahay qorshe waxay inoo ka baahan tahay dadnimo waxay inoo ka baahan tahay shaqo marka